wararkii ugu dambeeyay sidoo kale weerarkii xalay bahalnimada ahaa ay kooxda al-shabaab ay ku qaaday hotel Xayaad oo ku yaala nawaaxiga kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho. Wararka rasmiga ah ee saaka ka soo gaaray ayaa si rasmi ah u sheegaya in gabi ahaanba la soo afjaray maleeshiyadka argagixisada al-shabaab oo weerar ku qaaday hotel Xayaad walow ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya gabi ahaanba ay soo afjareen weerarkaasi iyadoo la sheegay in ku dhawaad 5 nin weerar ku qaaday hotelka ay inta badan ay deganayeen dad madax oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. wararka rasmiga ah haatan laga soo gaaraya magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya ayaa si rasmi ah u sheegaya in ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ay si rasmi ah u sheegeen goor dhaweyd in la soo afjaray weerarkii xalay bilaabmay 2 saac isla markaana haatan oo tahay 2 saac iyo qadar daqiiqada ah si rasmi ah ciidamada ay u soo afjareen weerarkii bahalnimada ahaa ee kooxda al-shabaab ee xalay saqdi dhexe ilaa haatan ka socday gudaha caasimada Soomaaliya ee Muqdisho. inta badan waxaa si rasmi ah loo xiray iskuusyada weyn halbulaha ee caasimada Soomaaliya ee Muqdisho ilaa haatan waxaa xiran qaybo kamid ah Muqdisho iskuusyadeeda waxaana jirta in ciidamada wali ay sugayaan ammaanka guud ee goobaha uu weerarka ku soo qaaday al-shabaab waxaana jirta in gabi ahaanba dhulka la dhigay hotel Xayaad oo ku yaala nawaaxiga agaarka kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya weerarkii bahalnimada ahaa ee kooxda al-shabaab xalay ay ku ekeysay hotel Xayaad oo ku yaala magaalada Muqdisho waxaana jirta dhimasho iyo dhaawac fara badan oo soo gaaray dad shacab ah oo deganaa hotelka walow aan si rasmi ah loo xaqiijin dadka madaxda ay ku geeriyooday hotelka waxaana ilaa haatan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale ciidanku ay si rasmi ah u xaqiijin qasaaraha kala duwan iyo sidoo kale waxyaabaha ka dhashay weerarkii xalay ee bahalnimada ahaa ee kooxda argagixisada ee al-shabaab ay ku qaaday hotel Xayaad oo ku yaala kilomitir 4. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya weerarka waxaana haatan si rasmi ah loo soo gaaraya in ciidamadu ay sheegeen in la soo afjaray weerarkii isla markaana kooxdii hubaysnada ee xalay weerar ku qaaday hotel Xayaad gabi ahaanba dhulka la mabiyay waxaana warar kala duwan ay sheegayaan in ay wali ay jiraan in halkaas raas ka dhacayso walow aysan dhab ahayn waxaana jirta wararka xogta dhabtaada soo gaaraysa ay sheegaysaa in gabi ahaanba la soo afjaray weerarkii bahalnimada ahaa ee xalay ee al-shabaab kooxo ka tirsan ay ku qaaday hotel Xayaad oo ku yaala kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho. lamaha kala duwan ee ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa goobta gaaray waxaana haatan si rasmi ah loo filayay in goor dhow afayeenka ciidanka booliska ee Soomaaliya oo warbaahinta la hadlo isla markaana oo shacabka Soomaaliyeed oo u xaqiijiyo isla markaana oo warbixin kala duwan ka siiyo weerarkii xalay bahalnimada ay kooxda al-shabaab ku qaaday hotel Xayaad oo ku yaala kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho. goobta weerarku ka dhacay ayaa moodaa inay tahay meel gabi ahaanba la baabiyay walow ay jiraan in dhulka la dhigay hotel Xayaad isla markaana ilaa haatan ay jirin qasaaraha rasmiga aan u sheegi karin walow aan si rasmi ah qasaaraha loo ogaanay. ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa inta badan la soo dhaway agaarka hotelka weerarka ay ku soo ekeeyeen kooxda al-shabaab waxaana jirta in wali ay weerarku socday saaka subaxii isla markaana goor dhaweyd oo si rasmi ah ciidamadu ay u sheegeen in gabi ahaanba la soo afjaray kooxda argagixisada al-shabaab oo weerar ku qaaday hotel Xayaad oo ku yaala kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho.